faaqidi doonaa haddaba caawa warar waaweyn ayaa soo kordhay dagaalkii ayaa u muuqda inuu sii baahayo bariga dhexe oo meelo hor leh uu ku sii fidayo haddaba marka ugu horreysa waxaynu ka bilaabaynaa maanta waxaa la weeraray eeraboorka magaalada sanca ee caasimadda dalka yeman halkaas waxaa gacanta ku haya xuutiyiinta sababta loo weeraray eeraboorka waa diyaarad ka soo kacday iiraan oo u soo socotay eeraboorka inay ka degto diyaaraddan hadda ka horna maray dhacday haddana waa markii labaad marka diyaaraddan waxaa laga cabsanayaa oo shaki laga qabaa Sacuudiga iyo Mareykanka iyo kulli ay ka baqayaan nimankii xuutiga ahaa inay alaab u wado waliba alaab kiimikalisa iyo alaabooyin kale oo gantaalaha waxa laga sameeyay dareerayaal iyo waxaasi inay keenayso oo nimankan alaabtii gantaalihii iyo wixii inay maartay u baahdeen waana cusbadii iyo wixii gantaalihii alaabtii u haystaan laakiin wixii lagu habeenayay ka dhinaa marka waxa laga shakiseen diyaarad marka Iiraan ka imaanayso ma soo deey karto halka marka way diidan yihiin dawladahan marka maxaa dhacay garoonkii ay ku degi lahayd la duqeeyay xuutigu isma waalin diyaaradii waxay ku dajiyeen meel la yiraahdo Xudayda oo Yemen ka tirsan wuxuuday ka qaateen iyagu laakiin waxay leeyihiin diyaaraddu rakaabay waday dad xanuunsanaya iyo dad wafdi ahaa oo ayatullaahiga aaskiisa ka qayb galay iyo waxaasay waday laakiin dadkan waxaasu ma arkaan wax kale arkaan cusba iyo xawaashi alaabtii gantaalaha lagu habeenayay ayay baashu wadaalay marka shakigaas dhacay marka laba arrinaa marka soo baxay dawladda Yemen ayaa waxay sheeganaysaa inay iyadu duqaysay Sanca waa dawladda Sacuudiga taageero ee Yemen ayaa dhahaysa annaga duqaynay xuuti wuxuu leeyahay waa beentiin tabar inta ku soo baxdaan Sanca ku duqaysaan ma haysaan nimankana duqeeyo waa naqaanay Sacuudi waayo haddaba marka hore aan tuso marka ciwaanka laga qoray sheekadaas xukuumadda Yemen ayaa waxay sheegatay in markaa ay duqaysay eeraboorka Sanca halka xuutiyiintuna ay ku eedeynayaan arrintaasi in Sacuudiga uu sameeyay tallaabadaas marka xuuti waxay leeyihiin nimankan Yemeniyiinta ma sameyn karaan sheekadan laakiin cid sameeysan naqaana laakiin waa cabsiinayna biyaheeday leeyihiin waaya wax yar kadib marka caawa maxaa dhacay wasaaradda gaashaandhigga ee Sacuudiga war soo saartay afayeenka wasaaradda wuxuu leeyahay xuutiga waxay soo weerareen Sacuudiga iyagoo soo gamay gantaalihii plastiga ahaa ee marka ay Israa'iil iyo meelaha ku duqeyn jireen daroon waa la iskala baxay jugta culus lagu bilaabay Sacuudiga haddaba marka aan tuso telefishinka al-Arabiya ee laga leeyahay Sacuudiga oo qoraya General Rukni Turki al-Maliki oo afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Sacuudiga wuxuu sheegay in difaaca cirka Sacuudigu ay la dagaalamayaan sawaariikh plastic oo la sheegay inay soo rideen maleeshiyada xuutiyiinta argagixisada sida warbixinta lagu yiri kuwaasoo soo weeraray mandiqatul janubiya meesha la yiraahdo ama deegaanada koonfureed ee boqortooyada Saudi Arabia sheeko waa dhanaanaatay waa arkaysaan dagaalku waa ballaartay waji kale u yeeshay xuuti iyo Sacuudi iyo jugta la iska gelinayaa markaan wax la soo naxariisanaa male tii Iiraan iyo hawsheedii iyaduna meel ay ka qasatay marka sheekadan marka iyaduna waxa laga cabsanayaa saameyn weynaya xuuti waxay wacad ku mareen inay iyaguna xiri doonaan eeraboorada Sacuudiga maadaama eeraboorkeeni ay soo weerarteen marka maxaa dhici doona dhibaatooyin fara badan aan dhici doona marka ilaahuna mooti waa xaalka marka ma fiicna gobolkii oo dhan marka marka ka dambaysa wuu isla sii gubanayaa oo maartay dhibaato sii soconaysa waaya dhanka kale haddaan u noqono sheekada ku saabsan Hormuz iyo Iiraan iyo Mareykan caawa wax weerar oo dhacay ma jirin intii galabta
ayaa la kala nagta la iska saaray waa la kala nastay caawa waxba ma dhicin laakiin waxaa la sugayaa Mareykanka inuu soo qaadi doono weerar Iiraan marka iyadu ma hormarto markuu Mareykanku weerar soo qaado ayay iyadu weeraro jawaab celina qaadaan haddaba marka aan tuso waxaa la leeyahay Mareykanku wuxuu dib u soo celiyay cunaqabatayntii dekadaha Iiraan waa tii heshiiskii dhawaa arrimihii lagu heshiiyay in la qaado ay ahayd laakiin hadda heshiis ma jiro oo ujeedaan baashi dagaal ay u dhuratay haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay bilaabi doonaan dhaqangelinta xayiraadii Iiraan saarnayd iyadoo markaa maanta waxay ka bilowda arrinka la hawlgeli doono wargeyska la yiraahdo New York Times oo soo xiganaya afhayeenka taliska dhexe ciidamada Mareykanka CENTCOM ayaa wuxuu sheegay in xaaladdu ay markaa isku dubaridka iyo hawshii in dib loo bilaabi doono xayiraadii la saaray badda Iiraan oo markaa dhammaan maraakiibtii Iiraan tagaysay iyo kuwii ka imaanayay ay markaasi cunaqabatayntaasi saameyn doontaa la leeyahay waaye sheekaas marka waxay u muuqataa heshiis khalaas waa dhammaaday nin walba iyo tabartiisa iyadoo marka xaalku halkaa marayo ninkii Trump ahaa wuxuu leeyahay sheeko yaab leh Hormuz wuxuu yiri cashuuraan ka qaadaa Iiraan markay joogtay muxuu lahaa oo macnaha Iiraan waa qaadaa markay tiri cashuur lagama qaadayo adduunka oo dhan cashuur la'aan soo lama lahayn ninkan wuxuuba iska soo jaray anaa qaadanaya cashuurta Iiraan haddaan ka adkaado meeshaan qabsado 20 ka qaadaa boqolkiiba cashuurta maraakiibta halkaa maraysa sababtuna maxay tahay sababtu waxay tahay uu leeyahay meesha ma iska joogaan ciidankaygu dhaqaalihii ay ku bixi lahaa diyaaradahan wax lagu waardiyeynayo meesha amniga ka dhigay Iiraan ka raacdaysanaya marka Iiraan haddaan ka raacdaysto ha suginina in meeshan ay sidii hore noqoto Iiraan marka waxay leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi Trump waaba siday taa uga hadlay meeshan siday tahay saas waa cashuur la'aan ma jirto cidii ku adkaata cashuura qaadatay leedahay Iiraan amniga oo iska gudubka free ma jiro hadda kadib macnaha waxa waa Iiraan iyo Mareykan ninkii cashuurta qaadan lahaa ay ku dagaalamayaan badhaakay marka timid baashi nin u danayna khaliij iyo arab iyo nin meesha shidaal marsana ay ma jiro nin walba meesha inuu qabsado lacag ka qaato rabaa marka haddaba markaan tuso Trump oo adduunka ka yaabiyay goordhaweyd Trump waxa uu sheegayaa inuu soo rogi doono cashuur 20% inuu ka qaadi doono marinbiyoodka Hormuz inuu ka qaadi doono haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay Trump ayaa ku qoray boggiisa la yiraahdo True Social Mareykanka hadda wixii ka dambeeya waxaa loogu yeeri doonaa ilaaliyaha marinka Hormuz laakiin si cadaalad loo sameeyo waxaan ku soo rogi doonaa khidmad 20% ah shaxnadaha maraya halkaas wuxuu sharaxay in khidmadani ay dabooli doonto qarashka oo dhan oo lagu fulinayo howlgalka lagu hubinayo badbaadada iyo amniga gobolka ee gaar ahaan marinbiyoodka Hormuz mujeda marka sheekadu waxa dhan oo loo socdo waa in meeshaas lacag baada laga qaato Trump waxa uu dagaalamaa Yurub maxay lahayd Faransiis iyo Ingiriis waxay lahaayeen meeshan sidii hore lagu celiyo maartay cashuur qaanuun maartay qaanuunka caalamiga ah meeshan fariiha laga dhigo oo maraakiibtu sida markii hore u mari jirtaa u marto soo tuulaha Macron barnaamijka hore aniga aan idin lahaa qaanuun dawliya meesha ma jiro yaa xoog badan waay Trump marka caawa wuxuu leeyahay ani Iiraan haddaan ka adkaado 20 qaada boqolkiiba free wax la yiraahdo jiraan Iiraan waxa leedahay waa soo dhaweynaa haddaan naga adkaato qaad haddaan ka adkaarana naga qaadaleen waa tahay marka wararka kale ee ugu waaweyn ee soo kordhay waxa kamid ah oo hadda soo dhacay Mareykanku waxay leeyihiin ciidankiisu markii ugu horeysay waxaynu isticmaalnay drones badda dhexdeeda drones loo isticmaalayo si aan u weerarno alaabta Iiraan ay haysato maraakiibteeda iyo doomaha yaryar ee badda nafta noo keena anaguna drones ayaan badda ku daadinay
macnaha daroon oo iyaguna badda ku dhex soconaya ayaan annaguna weeraradaasa isticmaalaynaa. marka waa ujeedaa dagaalkii marka wuxuu isku bedelayaa dagaal lagu dagaalamayo Hormuz gacan ku haynteeda, ninkii qabsadana uu lacag ka qaadanayo. sheekadu marka halkaasay maraysaa. haddaba marka aan tuso telefishinka Al-Carabiya wuxuu leeyahay ciidanka Mareykanka war ay soo saareen waxay yiraahdeen waxaynu adeegsanay daroniska badda markii ugu horeysay si aan ugu garaacno goobaha maraakiibta Iiraan iyo ayaalaan. maraakiibta iyo doomaha Iiraan ee na dhibay ayaanu marka saas ku sameeynaa yiraahdeen. wararka kale ee soo kordhay waxaa ka mid ah shidaalkii adduunka cirku sii galaya, saacadda ka dambayso cirku galaya. hadda markii la yiri Sacuudiga la weeraray cirkaasuu galay, tii hore iskaba dhaaf adduunkii oo dhan marka wixii oo dhan way qaaliyoobayaan. xaalku marka ma fiicna, allow saalo umuuraha la barayo. markii shidaal qaaliyoobo, gaas qaaliyoobo, maxaa ku soo xiga? wax walba way qaaliyoobayaan. transportationkii, diyaaradihii, baabuurtii, wax walba. haddaba barnaamijkayga caawa naga intaa wixii kaloo warar soo kordha haddii Mareykanku weerara qaado iyo haddii loo jawaababa subaxiyaa noo balladha. nabadgelyo.